بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa xaqiiqa salaanka bacdi barnaamijkeenu caawa noqon doona isbarbardhig ama iskarabdhig labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya guud ahaan siyaasadooda iyo dhaqankooda iyo ficiladooda ayaan iskarab dhigi doonaa. aan ku bilaabo waxa maanta adduunka jaraa'idkiisu qoraya gudaha iyo dibaddaba Somaliland oo muujisay kalsooni ay isku qabto oo aan loo yeedhin karin ama dowlad kale aan u yeedhin karin waxa dowladda kale ay doonayso, taasoo markhaati cad loo hayo inay Somaliland dhigtay taariikh adduunka oo dhammi ka markhaati yahay. aan bilaabo siyaasadda arrimaha dibadda ee dhinaca Somaliland waxay aan ku horeeyo Somaliland waxay siyaasaddeeda arrimaha dibaddu madaxa la kacday xilligii dowladdii hore dhammaadkeedii, taas oo ay xidhiidh diblomaasiyadeed u dhex maray dowladda Imaaraadka Carabta, diblomaasiyadeed iyo mid ganacsi labadaba la odhan karo, oo heshiiskii dekedda uu dhacay. sidoo kale heshiis kale oo siyaasina uu jiray oo markii khaliijku uu kala jabay ee uu ku qaybsamay khilaafka ay Somaliland dhinaca saartay Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga oo ay ka soo horjeestay dowladda Qatar ay ka badheedhay, taasoo aan odhan karo dariiqii saxda ahaa ayay Somaliland raacday. waxaana sax ka dhigaya inay dariiqaasi sax ahaa waxay eegtay istaraatiijiyaddii iyo baahidii ay Somaliland u qabtay labada dhinac. waxaa muhiim noqday dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka oo taariikh iyo xiriir ganacsi uu ka dhexeeya Somaliland oonay ka maarmi karin, kaasoo Sacuudigana xoolaha loo iibgeeyo, Imaaraadkana badeecadaha iyo noloshoo dham ay ku xidhantay. dhinaca marka laga eego waa sax. dhinaca kale marka laga eego dowladda Soomaaliya waxay isku xidhnaayeen oo samaysay oo dusha ka xukumaysay ilaa haddana ka xukunta dowladda yare Qatar, maadaama dariiqa Soomaaliya raacday in dariiqa kale ka soo horjeeda Somaliland raacdana sax bay ku ahayd. heshiiska Somaliland iyo Imaaraadku dhex maray wuxuu noqday kii aftaxa ahaa ee ay ku soo dhiiradeen dowladaha maanta Somaliland la soo xiriiraya oo dhan. qaar badan ayaa ku dhiiraday oo heshiiskaasi u dhiirigeliyey inay Somaliland tahay meel lala heshin karo, wax la gashan karo, cilaaqaad u dhex mari karo dowladaha kale. dad badan oo reer Somaliland ah oo siyaasiyiin iyo shicibba leh oo qaar badheeraya iyo qaar aqoon ay ka tahay labadaba leh ayaa ka hor yimi heshiiska Imaaraadka iyo Somaliland. xisbiyada qaar baa ka hor yimi, haddana maanta waa lagu najaxay oo waxa uu inoo furay albaabka xidhiirka dibadaha ayaan odhan karaa. wixii ay lagu ballamay ee horumar ahaa, ee fasman ahaa, ee kaabayaasha dhaqaalaha, ee dekedaha iyo eerboodhada ahaa iyana way muuqataa. dekeddii baa gabaabsi ah oo dhismahoodu ka socdaa, eerboorkii baa dhammaaday, dariiqyadii waaweynaayo motoor weyg ahaabaa qaar la furay oo bilowgoodii la furay, kuwa kalena shaqadoodii socotaa. waxaasoo dhan waa wax lagu najaxay oo sidii loogu talagalay u socdaa. diblomaasiyaddii ay noo aftaxdayna waa taa maanta Somaliland kuyuga loogu jiro ee adduunkii oo dhami ufuuddoodii ay istaba socoto, maqrib iyo maqshir. waxaasoo dhan waxaa aftaxu ahaa oo dhiirigeliyay Imaaraadka inaan odhan karaa oo aabbo u ahaa Somaliland tijaabo lagaga qaado, tijaabadii ka baxday. Somaliland waxaa maanta aada loo hadal hayaa oo meel walba laga hadal hayaa in labadii quwadood
ee ugu waaweynaa ee midna Afrika ugu weynayd oo Ethiopia midna adduunka kuwa ugu waaweyn ka mid ahayd oo China ah ay labadiiba marsiin kari waayeen sidii ay doonayeen oo ay u laqami kari waayeen dhaqanka madaxda Soomaalida ah lagu bartay ee especially Soomaaliya ayaa ahaa mid cid waliba ka muraadsato madaxdooda oo xitaa marka la dooranayo cidda wax doorata ay tahay dowladda ajnabiga oo ka iyagu wataan u soo baxo waxaan shaki ku jirin in dowladda Farmaajo ay soo saartay dowladda Qatar oo lacagteeda la isticmaalayay gacanyaraheeduna uu ahaa dilaalka ahaa Fahad Yaasiin oo ninka Qatar ku xidhan ah madaxweynaha jiifa ee Soomaaliya xukumaana Fahad Yaasiin iyo Qatar ay yihiin haddii Fahad Yaasiin maalinta uu qabiilkiisa u saamaxay inuu madaxweyne noqdona isagaa noqon lahaa laakiin waxaan u saamaxayn qabiilkiisa oo aan reer waxsana oo Soomaaliya aan degin that's why buu Farmaajo u doorbiday inuu ka dhigo marka halkaa waxaa ka muuqata in Soomaaliya ay tahay meel marka horena madaxdooda dibadda laga keeno oo dowlado kale keenaan marka loo sameeyo magaca madaxeedna ay dowladaha kale xukumaan oo farta loogu yeero loo yeeriyo waxa la wixii laga doonayo laga muraadsado waa meel dowladnimadeedu ay tahay casaabad maafiya ah oo guranaysa deeqaha dibadda iyo resource-ka dalka kala boobaysa waa meesha baddii barrigii dadkii meel laba aan u aabayeelin taa beddelkeeda haddaan usoo noqdo Somaliland waa meel maanta adduunkoo dhami u hadal hayo waxaynu ogeyn in loo yeerin kari waayo madaxda Somaliland madaxweynaheeda wixii dowladaha aan magac dhabay ay damacsanaayeen way dhacday oo markhaati bay lahayd in dowladda Ethiopia oo hormuudka Afrika ahi ay madaxweynaheena iyo dowladdeena ku bushkareynaysay in prime ministerkeedu Hargeysa yimaado isagoo Farmaajo wada ganafka ayuu ku dhuftay madaxweynaha Somaliland waanu ka diiday waanu liqi kari waayey prime ministerki manuu filay way dhacday markhaati uma baahna adduunkoo dhan baa ka markhaati oo furay maanta ayay iyana adduunkoo dhammi qorayaan in quwaddii adduunka ugu weyneyd ee China ee veto power ka lahayd ay wafti laba goor iska soo daba dirtay oo ay Somaliland ku qanciyeen ama ay ula socdeen in ay mashaariic u ballan qaadeen ay kaga joogsadaan heshiiskii Taiwan taasoo Somaliland ka diiday oo ay ganafka ku dhufatay oo ay tiri waanu idinla heshiinaynaa xafiis baa furan kartaan xiriir baanu samaysan karnaa soo dhawaada laakiin annaga cid nooma yeedhiso cidaanu la hadlayna iyo cidaanu garanaysaa xiriir la samaysanayno dowladda yar ee Taiwan ee qaniga ahi dowlado badan oo adduunka ah ayaa si official ah iyo sidaa Somaliland maanta ay xiriirka dhex maray noociisoo kale u dhex maray oo badan oo maamka aan hayo ku cad adduunka dawaa'il badan baa xiriir la soo Taiwan China uu lamu tigin dawaa'ilka kale in ay xiriirka gooyaan laakiin Somaliland uu kula soo dhacay isagoo oo moodaya sida Soomaaliya oo kale Soomaaliya waxa xukuma safiirada ajnabiga ee dowladaha kale ka yimi iyo madaxda ajnabiga iyo kuwa hay'adaha caalamiga ayaa xukuma sidaasoo kale ayay moodayeen laakiin way ku hungoobeen oo waxa ka raacday waxaanay filay dowlad ku kalsoon oo aan waxba loo yeerin karin oo xuquuqdeeda ay dadka dowladuhu ku leeyihiin iyo tayadu ay leedahay kala garanaysa oo sida caalamka u dhaqmaysa oo kalsooni iyo qab leh ayay arkeen ama ha ka caroodaan ama yaanay ka caroonin dariiqa Somaliland ay martay waa mid caalamku carabka ku hadal hayo oo aan laga baran Soomaali xiriirkii hore ee carabka ku dhuftay ee khaliijka ee ay Somaliland imaaraadka iyo Sacuudiga dhinaca saartay dowladda Farmaajo Qatar oo markii hore iyada keentay ay dhinaca saartay waxaynu haddana ogeyn
in isla soomaaliya qaybo ka mid ahay ay farmaajo kaga soo horjeesteen qatar oo imaaraadka ay la xidheen. jubbaland baa ka mid ahayd oo mucaawamooyin u keentay oo gaadiid u keentay qalab u keentay ciidamada ah. haddii alle ku roon yahay jubbaland iyo puntlandba waxay la xidheen intay dowladdoodii federaalka ka baydheen ayay la xidheen dowladda imaaraadka. halkaa waxaa ka muuqata kala qaybsanaan iyo gacan dibadeed oo ay faraal ula jiro. 5 maamul ee soomaaliya ka jira mid la haystaa ma jira, mid waliba siyaasaddu doono ayuu ku dhaqmay arrimaha dibadda. waxaanay ka dhigan yihiin 5 diinka bahalkan la yidhaa ee gurguurtee luqunta la soo baxa. haddaad istiraa 5 midh isu keen isuma keeni kartid weligaa. markaad mid ka tagtad mid kale u dhaqaaqdo ayuu kii luqunta la soo baxaya u dhaqaaqaya, kii kalena markaad istiraa ku noqo ayuu luqunta ceshanayo intuu dhahdaa buu fadhiisanaya halkii. waa maruu fadhiisanayo luqunta kaa ceshado iyo mar uu luqunta la baxo aad ka dhaqaaqdo isku dhaqaaqo. 5taa diin bay noqdeen dowlad goboleedyada soomaaliya ee aan wada socone kala socda ee haddana federaalka sheeganaya, afka ka sheeganaya, ee aan wax alla wax ka wadaagaan jirin, mid waliba ciday doonto xiriirka la samaysanayso. waa meel magac dowladeed yaallo oo waraaqo dawliya haysata, haddana afka unka ah ee aan dowladi ka jirin. somalilan maanta waxay muujisay dowladnimo taariikhda u gashay oo lagaga dayan doono, oo dowlado badan oo afrikaani ay kaga dayan doonaan kalsooniday muujisay. waxaan iyana carabka ku dhufanaya oo aan soo qaadanaya kal hore haddaaya waxaa xajka gudanayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo wafdi uu hogaaminayo wasiirka. waxa ay ku qasbeen dowladda sacuudiga in ay wafdiga xukuumadda madaxweynuhu hogaaminaya baasaboorka somalilan ay ku tegi karaan xaramka, mid kale aanay ku tegi karin. toodii bay noqotay, waana laga aqbalay. lax waliba shililka isdhigto ayaa lagu qaabalayay. way dhacday. waa taariikh uguba oo uu sameeyey madaxweynaha iyo dowladda cusub. wasaaradda arrimaha dibaddu maanta 2 sano u dambeeyey waxay samaysay siyaasad ay ku kasbanayso saaxiibo badan oo dunida oo Afrika iyo Asia iyo Yurub iyo meelo kala baray, oo waliba u yar socda oo aan lagu faanay. waxaynu ognahay oo indhaha laga qarsan karin dowladda Afrikada ka mid ahay inay u ololeynayaan maanta itraafka Soomaaliland oo laga doodayo. waxaynu ognahay oo kale qaar kale inay baasaboorkii Soomaaliland aqbaleen oo Afrikaan in lagu soo dhoofo. waxaynu ognahay qaar khaliijkii inay aqbaleen. waxaynu ognahay qaar kale maxay Taiwan iyo qaar kale inay aqbaleen. waa horumar iyo tallaabo ay Soomaaliland qaaday oo ay hore u socoto oo ay waliba tallaabo dheerayso noqon kara. halka Soomaaliyana ay dib u guranayso u gooxayso iyadoo oo maaliyadii adduunka oo dhan lagu dhameeyay, haddana khasaare laga joogo. Soomaaliland waxba la gashanina ay marayso heer aanay dowladaha Afrika la ixtiraafsan yihiin aanay gaarin. in badan oo dowladaha la ixtiraafsan yihiin Afrika ayaa loo laqimaa oo dowlado kale u laqimaa waxay yeelayaan oo farta lagu yeera, halka Soomaaliland ay ka diiday. waxa soconaya waa wax taariikhda gali doona oo aan la qarin karin. dad badan oo reer Soomaaliland ayaa maanta iyo ayaamahanba ka hadlayay oo lahaa China waa dowlad weyn oo quwaddii adduunka ah ee fiitooga lahayda, oo haddii ay ka hor timaado Soomaaliland kula dagaalami doona qaramada midoobay iyo kursiga ay ku yeelan doonto iyo itraafka kala dagaalami doona. dadka sidaa u fikraya waa dad fikirkoodaas uu qaldan yahay. China inuu quwaddii adduunka yahay shaki kuma jiro, haddana quwad kastuu leeyahay shuruuc baa adduunka u taalla. dowlad waliba xor bay u sii tallaabadeeda. maanta Soomaaliland maaha mid ka fikraysa inay qaramada midoobay kursi ku yeelato, ma hortaalo. wax badan baa ka horeeya. qaramada midoobay inay kursi ku yeelata waa istabta u dambaysa ee ay Soomaaliland fuli doonto. waxaa ka horeeya maraaxil badan oo in la sii maro ay qasban tahay.
somalilan maanta waxay ka fikiraysaa in ay dowlada la samaysato xidhiir diblomaasiyadeed, ictiraaf ka hesho, baasboorkeeda lagu dhoofo, isdhisto, xidhiirkeeda dibadda uu halkuu taagan yahay hore uga maro oo ay ictiraafyo kala noocnooc ah ka hesho dawaayilka adduunka. somalilan waxaa ka horeysa inay qaramada midoobay kursigeeda ku fadhiisato, inay ku fadhiisato urur goboleedyada sida IGAD, African Unionka, jaamacadda carabta, dunida muslimka iyo qaar kaleba. istabta u dambaysa kuwa ka sheekeynaya qaramada midoobay kursiga iyo China ka sheekeynaya waa qaar aan wax badan ka fikirin oo xisaabtu ka qaldan tahay. sidoo kale waxay dad badani carabka ku dhufanayeen reer somalilan inuu China ka aroon doono xiriirka Taiwan iyo somalilan oo ka hortimi inay ka aqbasho in xiriirka la furo. arrimahaana qaar badan baa ka hadlayay. ogow quwadaha adduunku inaanay China uun ahayn 5 ay yihiin oo 3 ay galbeedka yihiin oo Mareykanka iyo Yurub leh. somalilan meel xun ma joogto. siyaasadaha adduunka ee quwadaha waaweyn adduunka ee siyaasadda ku xafiiltamaya ee tartanka ka dhaxeeyo ee iska soo horjeeda dowladaha yaryar ee soo korayaana way la kala socdaan. qasab baanay noqonaysa inay dhinac u bataan, dowladdu laba dhinac u badato. hadday somalilan dhinaca reer galbeedka u badatay meel xun ma joogto. China somalilan waxay ku qancisay inay soo dhaweyso, inay xiriir samaysan karaan, inay u furan tahay xiriirku, dowladaha kalena aanay ka hadli karin. sidaasay maanta ku qancisay in xiriirkoodu uu furan yahay, soo dhaweynayso, xaq u leeyihiin xiriiraan, laga maarmi karin, ay u baahan tahay xiriirka China, laakiin aanay ka aqbali karin China iyo dowlad kale toona in la yidhaha xiriir dowlad kale aad la leedahay jooji, aanay ka aqbali karin. taasay ku qancisay oo ay ku tegeen waftigii yimi ee ka koobnaa safiirka iyo ergeyga Afrika u qaabilsan China. haddii China uu ka cadhoodo inay somalilan ka hortimi maxaa dhici kara? China ma soo weerarayda somalilan. waxa kaliya samayn karaa aqliyan inuu fikirno oo Soomaaliya uu soo dhex maro oo kula dagaalanta siyaasiyan. Soomaaliya awalba siyaasiyan way u dagaalamaysa, taageer meel dhigtaba waxba iskama hakranayn, waynu soo joognay, nagamay qarsoonayn. haddii maantana ay China kula dagaalan, ogow inay somalilanna dhinac kala haysato oo quwadihii adduunka ah oo kuwa Soomaaliya wax siiya ah oo Mareykan iyo Yurub leh oo aanay saacad Soomaaliya ka maarmi karin kuwa. haddii sidii khaliijka Qatar iyo Imaaraadka ay kala raaceen ay China iyo Yurubiyan iyo Mareykan u kala raacaan, maantana somalilan meel xun ma joogto. kuwii bilinayay ayay Soomaaliya lusgarin doontaa. halkaasna kuwa ka wabinaya meel laga wabiyo ma joogto somalilan baa leh. waxay taagan tahay meel lagu garab istaago. waxaa qaraya kuwii siyaasaddiina ka soo jeeda Soomaalida ahaa, waxaa qaraya dowladda adduunka, waxaa qaraya cid kasta wuxuu muuqdaan oo meel kasta way ku qorantay maanta. taariikhda ayay u galaysaa dowladda Muuse Biixi sida ay u maamulayso iyo qabka ku jira iyo sida ay dowladnimadeeda aanay dowlado kale u fargelin karin. waxaanan aaminsanahay kalsoonida ka muuqata iyo shaqada iyo dadaalka ka muuqda inay goolkeed ku gaadhayso. kuwa beenta ka sheegaya ee waddanka wax ku leh ee marka wanaag iyo horumar waddanka runa laga sheegaya naxaya ee isbedelaya ee aad arkaysa inay naxayaan, waxaan leeyahay war dalka dowladda xukumaysa maanta ma leh, madaxweynuhu ma leh, dalku wuu naga dhexeeya. ninkii weli dadaalaaba tan madaxweyne uu ka noqonaya. war dhaliilshan idinka wax dhaliilaya, dhaliilsha moodaya, xumaanta dhaliil ka dhigayo, dhaliilshu ma waa lex jeclo. waxa lagaaga baahan yahay wax dhaliilayo waxaad dhaliilaysay inaad ka wanaagsanaato oo dowladdan haddaad dhaliilayso aad adigu ka fiicnaato oo lex jecladii kaa muuqato oo wanaaggii kaa muuqdo oo dadka aad ku kasbato berritooda doorashada wanaaggaad fashay ee aad kaga wanaagsan tahay waxaad dhaliilaysay. xisbiyadu waxay soo daayeen doorashadii u dambeysay dad maatiya iyo makasa oo ku dhex dabaashay siyaasadda oo waxay doonaan maanta miidiyaha kaga hadlaya oo muujinaya qaladaad badan oo been ka sheegaya xaaladda somalilan iyo nidaamka ka jira. waxaan leeyahay asxaabta qaarkood
war idinkaa madax u ah masaakiinta iyo maatida dumarkii hoggaankii goosatay ee u caqli celiya oo idinkuna qaladaad ka gasheen ka soo noqda waa la noolaan doonaa tanna way dhaqaaqday oo ilaahay baa wata dowlad wanaagsan oo ka fikiraysa mustaqbalka ubadkeeduna way shaqaynaysaaye wax la qabta oo ha ka hor imanina wanaagga guryihiinna iyo dalkiinna u soo kordhay somalilan shacabkeedu isindhahay ku hayaan waa wada siyaasiyiin maanta qaladka iyo saxa way arkayaan cadceed shacab looma qarin karo waxaan leeyahay siyaasiyiinta hungurigu ka haya kursigow laxajeelaha idinka muuqato laxajeelaha idinka muuqato ha ka sheekaynina darhoorinta xafiisyada ha ka sheekaynina marka ha ku khalkhalgelinina somalilan been maatida been ha u sheegina wanaagga ha ka naxina horumarka dhulkiina iyo guryihiina ha ka naxina ilaa waa ka u soo socoteen ee kursiga kaa doonaysaan weeyaane dowladdana waxaan kula dardaarmaya inay ooda iska dhacamiso oo siyaasadday ku socotaa maanta waa mid aan adduunka ka wada farxinayn colaadna way yeelanaysaa iyo cidlo colaadisa cid ay la saaxiibtana way yeelanaysaa tallaabadii maanta haysaa dowladdu waxaan leeyahay colaadda kugu imanaysana ka arta tabayso oo horaa loo yidhi wiilkaaga walaalu lahaw walaalkaana wiilu lahaw wax kastoo kugu imanaya cid u samayso meel lagugu hambaleeyaa taagantay waanu idin ducaynaynaa ilaahayna waxaanu leenahay talada saxda ah ha idin waafajiyo allahayo laba talaba tii roon wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu